ogeysiis dhammaan bulshada ku nool gobolka Karkaar gaar ahaan degmada Qardho waxaa la ogeysiinayaa inuu dhawaan gaari doono Qardho Sheekh Xasan Cilaaj oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee Quraanka Kariimka iyo Sunnaha Rasuulkeena Subhanahu Alayhi Salaatu Wasalaam wax ku daweeya kaasoo ka soo shaqeeyay qaybo kamid ah gobolada dalka iyo dibadda dad badanna alla ku caafiyay tuftiisa waxa uu ka howlgali doonaa xarunta Quraan saarka ee Darul Iqwa oo si ku meel gaar ah Qardho ugu shaqeyn doonto waxayna xaruntaasi ku taala wadada aada Hotel Gafure aaga foornada Qoryacad masaajidka Taqwa ayayna dhanka qorax dhaca ka xigtaa xarunta Quraan saarka ee Darul Iqwa xanuunada ay ka daaweyn doonto Ilaahba dabada hayay waxa kamid ah xanuunada ruuxiga sida sixirka isha jinka walaaca isla hadalka madax wareerka walwalka iyo walaaca insha Allah ta'ala xaruntu maartay waxyaabaha dadka ay ugu adeegto waxa kamid ah Quraanka Kariimka dadka ku daaweysa waxa kale maartay anaga maartay dadka aan maartay ku daaweynaa dhirta maartay subhanahu sallallahu alayhi wasallam oo sheegay cashabta ayaan dadka ku daaweynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ha maartay caafimaadka hayo in badan oo indhaha la kuwa maartay curyaama ah kuwa maartay maxaa la yiraahdaa oo xanuuno badan hayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala caafiyay ilaahay maartay ku mahadsan maartay xaruntu waxyaaba maartay ka daaweyso waxa kamid ah xanuunada jinka isha maartay sixirka xasadka inta ilaahay subhanahu wa ta'ala dad badan ilaahay noo guuleeyay wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir cinwaanada shaashada idinkaga muuqda